السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يا مقالكلة دعنا وحين كجهل دونا جرادك عاطفة وحلايا قانو علماء السيكولوجيا يتقانو emotional intelligence سيدا عادي جا واحد شراء قفك من هذا كهي لابد جراد بهالشراء أو جراد اللي راحضو أي كيود عادي جا أي كيود وحويه وجراد كان عادي جا قفكو من مريجا وحكو حفتيو اللهم صل على محمد كوفي كرو ويا لكن قرأت كان كله EQ على الرغم ب emotional intelligence emotion كو وحويا ولحو والدرين مركا emotion كا مركا واحد نقولنا قرأت كعاطفة ذها أم باللحو قرأت كني وحويا وقرأت هنتي marka psychology laga hadlayo amba qofka naftiisa ba micna badan u leh wax weeyaan sidoo qofku u garan lahaa mashaacirtiisa dareenadiisa u fahmi lahaa sidoo kale u xakameyn lahaa dadka kale dareenadooda u fahmi lahaa xiriirka dadka kale u fahmi lahaa waxyaabahaas oo dhan ayuu garaadkan ka mas'uul yahay waxa la yiraahdaa garaadkani cilmi baarisyo badan oo la sameeyay garaadkani boqolkiiba 80 ayaa wuxuu ka qayb qaataa qofka guulaha uu nolosha ka gaaro oo boqolkiiba 20 xaq uu garaadka kale ka yahay oo qayb ka yahay waayo qofka guushiisa waxa go'aamiya waxa weeyaan sidoo waxa weeyaan uu competence yani uu la yimaado adkaysi uu la yimaado fikirkiisa attitude uu hagaajiyo diidmooyinka badan iyo loolanka iyo challenge-ga iyo taxadiyada la kulmayana uu waajaho waxyaabahaas ayaa guushiisa qayb weyn ka ah sidoo kale waxa guushiisa iyaduna qayb weyn ka ah bulshada waayo qof ma jiro keligii oran kara keligii baa wax noqonaya waayo qof kastaaba waxa weeyaan qofka ibnaadiga waa qof waxa la yiraahdaa waa ijtimaaci waa qof bulshaawiya oo bulshadaas wax ku yahay wakii doon carbeed lahaa dadka geesi lagu yahay macnaheedu waxa weeyaan haddaad doonaysid maanta inaad hogaamiye noqotid waa inaad dad maamusha haddaad business furatid oo doonaysid ganacsi inaad samaysid waa inaad dad wax ka iibsadaan waa inaad customer yeelataa haddaba si aad dadka maxay ahayd la dhaqankoogaas amba haddii la dhaqankaagu wanaagsan yahay waxay keenaysaa inaad yani wax sector kasta oo nolosha kaga jirta inuu micno badan sameeyo ayay sameeysaa marka garaadkaasi waxyaabahaas ka muhiim haddaba garaadkani soo tilmaamnay waxa weeyaan garaadka ku taxalluqa qofka caadifadihiisa xakameynta naftiisa dad dhaqankiisa waxyaabahaas ay ku meeraa haddaba garaadkani waxa la yiraahdaa laba qaybood ayaa loo kala saaraa labada qaybood buu si kala baxayaan amba wuxuu ka kooban yahay isku dhisyada waxa jira waxa la yiraahdo self competency oo ka go'aansho nafsadeed ayay noqon kartaa haddaynu Soomaali u bedelno waxa weeyaan qofkaasi laba waxba soo simanaya wax soo iskalaya self awareness ku waxa noqonaysaa ka warqab nafsadeed amba ka warqab nafteed qofkaasi inuu naftiisa ka warqabo in Allahumma salli ala Muhammad yani fikradaha soo galaya feelingska gudaha sida basic emotions baa jira wax la yiraahdo calada farxadda la yaabka warwarka waxyaabahaas oo dhan sidoo uga warqabo adigu naftiisa consciouskiisa iyo waxyaabaha ku hareeraysan sidoo uga warqabo salaano kale qofka dareenadaasi isaga la soo kulmaya niyad jabkiisa waxyaabahaas ayaa self awareness ka waxa kale oo jira oo iyaduna jirta wax la yiraahdo self management oo soo hosgalaysa qaybta personal competence self management waxa weeyaan sida uu naftiisa u xakameyn karayo go'aan qaadashada sidoo go'aan u gaari karaya Allahumma salli ala Muhammad naftiisa sidee buu xakameyn karaya yani dareenadiisa kala duwan negative-ka iyo positive-ka labadaba muxuu ahaa sidoo xakameyn waxaan ognahay yani qofku marka uu go'aan amba xaalad marka ku jiro mood ku jiro negative mood marka ku jiro go'aamada iyo resultiga ka soo baxa waxa qabayeen qaar waxay u badan yihiin toban bay badan yihiin sidee ayaa uu maamul karaya waxa inuu qofku markuu faraxsan yahay wax ka soo baxa waxyaabo badan ballan qaadiya waxa la yiraahdaa psychology waxay yiraahdaan go'aan ha gaari muxuu ahaa marka aad calaysan tahay go'aan ha gaari waayo si fudud go'aan aad u gaadhaa adigoo calaysani wuxuu keeni karayaa inaad qoomamo badan hadhow joole aad gashid sidoo kale adigoo faraxsan waxba ha ballan qaadin waayo markaad wax faraxsan tahay wax kasta waxay kula muuqanayaan
si positive ay kula muuqanayaan marka waxay keenaysaa taas hadhow toole inaad ku go'aamisid marka self management ayaa iyaduna marka labadaas qaybood qaybta kale iyaduna waxa la yiraahdaa social competence waxay noqonaysaa Allahumma salli Muhammad awoodda bulsheed ee qofkaasi amba awoodda bulshada la dhaqan bay noqon kartaa ay Soomaalihan ku macnayno iyadana waxa soo iskalaya social awareness waxa weeyaan ka warqabka bulsheed abay noqonaysaa inaad fahantid dadka kale dareenadooda inaad empathy wax la yiraahdo yeelatid oo empathy waxa weeyaan la dareen noqoshada dadka kale in badan inaad maqashay waan jecelahay hebel waxa uu la dareen yahay bulshadiisa micnaheedu waxa weeyaan dadka kale halkay joogaan isdigtid markaad yani aad dhageysanaysid oo kale qofkaasi uu shucuurtiisa kaaga sheekaynayo aad dhageysatid si fiican u dhageysatid aanad judgment iyo siinin adigu qofka kale inaad dareenkiisa la falgashid oo qofka kale yani halku joogaas predicted waxa iyaduna soo hosgelaysa maamulada xiriirada amba relation management bay noqonaysaa maamulada xiriirada waxa weeyaan qofkaasi inuu yani dad dhaqankiisa amba communicationkiisa inuu wanaajiyo oo maxay hayday dadka sidoo wax uga dhaadhicinayo sidoo wax uu sheegayo balamaha uu qaadayo Allahumma salli ala Muhammad ka warqabkiisa yani bulshada ku hareeraysan waxyaabahaas oo dhan baa soo hosgalaya waxa la yiraahdaa cilmi baaris badan oo la sameeyay waxa la yiraahdaa xiriirka maamulitaanka xiriiradu waa waxa keena boqolkiiba 83 bay waxay keenaan baa job performance yani qofka inuu shaqadiisu wanaagsanaato oo uu noqdo qof good leadership noqdo businessman noqdo waxa keena baa la yiraahdaa sida uu bulshada ula dhaqmo midna ogow way isku xiran yihiin badanka way isku xiran yihiin oo waxa isku xiran waxa weeyaan naftaada sidaad u manage karayso naftaada sidaad naftaada uga warqabtid waxay go'aaminayaan sidaad bulshada ula dhaqmaysid iyo sida aad Allahumma salli Muhammad warqabka bulshada iyo la dhaqanka bulshada waayo waxa weeyaan basic waxa ah oo waxa weeyaan salka waxa ah naftaada ka adkaan naftaada fahmin talentigaaga iyo hibooyinkaaga fahmin maxaad ku wanaagsan tahay maxaad ku xun tahay maxaa ku farxad geliya maxaa ku caro geliya waxaas oo dhan hadii aanad garanaynin sidee baa loo maamulaa sidee baad markaad kacsan tahay loo dejiyaa haddaanad intaas oo aanad dhan garanaynin waxa adkaanaysa bulshada inaad la dhaqantid intaasaynu ku soo afmeeri doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa jira buugaag badan oo laga qoray mowduucan psychology-ga amba mowduucan emotional intelligence-ga laba buug baa jira oo nin la yiraahdo Daniel uu ka qoray oo qayb buugga koowaad waxa weeyaan social wuxuu raadayay emotional intelligence baa la yiraahdaa waxaan xagga hoose inuu kula wadaagi doonaa hadii la yiraahdo oo laba qaybood buu ka yahay ka kan waxa la yiraahdaa social intelligence baa buugga la yiraahdaa labada buug hadaad akhridid runtii waxaad si fiican baad u fahmi kartaa mowduucan aynu ka hadlayno hadii Raxmaanku idmo intaas ku soo afmeeri doonaa intaaynu isku kulmi doono hadii Ilaahay yiraahdo mowduuc kale oo psychology amba cilmi nafsiya intaas ku soo afmeeri doonaa aad baad mahadsantiin wabillahi